Waa qaybtii labaatanaad qisooyinka nebiyada. Waxay qaybta hore inoo maraysay Nebi Muuse oo markii loo sheegay in naftiisa ay halis ku jirto, ka soo tegay dhulkii uu ka talinayay Fircoon. Nebi Muuse calayhi salaam wuxuu ka soo tegay Masar isagoon ogeyn halka uu caga dhigan doono. Wuxuu tala saartay Alle subxaanahu wa tacaala, wuxuuna ka baryay inuu badbaadiyo. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa ku simay Nebi Muuse dhulka Madyan kadib safar dheer iyo daal aad u daran. Wuxuu dul tegay ceel ay ku hareeraysan yihiin dad badan oo doonaya inay ka waraabistaan xoolahooda. Wuxuu kaloo Nebi Muuse meesha ku arkay 2 hablood oo iyana taagan meel ka fog dadka, balse raba inay xoolahooda waraabiyaan. Markaas ayuu Nebi Muuse weydiiyey 2dii hablood, arrinkiinu muxuu yahay? Kolkaas bay ku warceliyeen, annagu wakhtiga ay dadkan xoolahooda waraabistaan baan waraabsan karnaa, aabbaheena waa oday weyn. Nebi Muuse oo u damqaday hablihii ayaa u waraabiyey xoolihii. Kadibna Nebi Muuse wuxuu u dhaqaajiyey harkii. Markaas Alle ayuu baryay oo ku yidhi, Rabbiyow, waxaad iigu tala gashay arsaaqad iyo cunno ah, waan u baahanahay. Kadib hablihii oo ku laabtay gurigooda ayaa odaygii dhalay aad ula yaabay sida dhaqsaha leh ay ku soo laabteen hablaha. Wuxuu weydiiyey waxa maanta helay. Markaas bay u sheegeen in nin xooggan uu xoolahooda u waraabiyey, sidaasna ay ku soo degdegeen. Kadib odaygii wuxuu u diray mid ka mid ah hablihiisa inay guriga keento. Waxaa timid gabadhii oo xishoonaysa, waxayna ku tiri Nebi Muuse, aabbahay wuxuu kugu wacayaa inuu kaaga abaalgudo wanaaggii aad noo gashay. Nebi Muuse ayaa aqbalay odaygii u yeeraya, wuxuuna tegay gurigii. Kolkii uu yimid ayuu odaygii uga waramay sheekadiisa. Odaygii ayaa ku yidhi, ha cabsan, waad ka badbaaday daalimiinta. Nebi Muuse wuxuu ka mid noqday reerkii. Mid ka mid a hablihii baa tiri, aabba shaqo sii ninkan. Nin aad shaqo siiso waxa ugu fiican mid xooggan oo la aamini karo. Odayga halkaa wuxuu ka arkay in gabadhani ay calmatay ninkan. Kolkaas buu odaygii yidhi, Muusow, waxaan doonayaa inaan kuu guuriyo mid ka mid a hablahayga, inaad ii shaqayso 8 sannadood. Haddii aad 10 sano xoolaha ii raacdo, waad sama fashay, aniguna ma doonaya inaan ku dhibo. Muddadaasi dheer waxaan ku wada joogi doonnaa wanaag. Nebi Muuse ayaa yidhi, heshiiskaasi aniga iyo adiga ayuu noo dhexeeyaa. Nebi Muuse oo Masar ku soo laabtay. Nebi Muuse calayhi salaam markii uu muddo ku sugnaa Madyan, wuxuu u xiisay reerkiisa, hooyadiis iyo walaalihiis. Kadib markii uu ballankii u fuliyo odaygii, wuxuu ka soo dhaqaajiyey Nebi Muuse magaalada Madyan, wuxuuna soo kaxaystay xaaskiisa. Wuxuuna dab ka arkay buurta Duur Siinaa. Wuxuu xaaskiisii ku yidhi, halkaas igu sii sug, aan ka war keenay dabkaasi. Markii uu yimid halkaas waxaa looga dhawaaqay dhinaca dooxa midig ee iftiinka ka baxayay, waxaana lagu yidhi, Muusow, anigu waxaan ahay Rabbiga caalamiinta. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa halkaas kula kulmay Nebi Muuse, waxaana loo diyaariyey in ummad loo diray. Waxaana lagu yidhi, usha aad sidato dhulka ku rid. Kadib ushii waxay isku beddeshay abeeso. Kolkaas ayuu Nebi Muuse baqay, waxaana lagu yidhi, ha baqin, aamin baad tahay. Sidoo kale Nebi Muuse waxaa la tusay mucjiso labaad, waxaana lagu yidhi, gacantaada jeebka geli, waxay ka soo baxaysaa iyadoo iftiimaysa. Kadib Nebi Muuse calayhi salaam waxaa loo diray Fircoon iyo qoomkiisa inuu dacwada gaarsiiyo. Markaas buu Nebi Muuse yidhi, Rabbiyow, aniga qof ayaan ka dilay dadkaasi, waxaana ka baqayaa inay i dilaan. Walaalkay Haaruun ayaa iga aftahansan, ee isaga i raaci si uu garab iyo gaashaan iigu noqdo. Ilaahay ayaa ka aqbalay codsigii Nebi Muuse, waxaana lagu yidhi, waxaan cududaada ku adkayn doonnaa walaalkaa, waxaannu idinka yeeli doonnaa awood, ee aayadahayga ula taga, idinka iyo kuwa idin raaca ayaa guulaysan doona. Waxaa kaloo lagu yidhi, markaad Fircoon u tagtaan, kula hadla hadal dabacsan. Nebi Muuse oo hortagay Fircoon. Nebi Muuse oo uu la socdo walaalkii Haaruun waxay u tageen Fircoon, waxayna ku yidhaahdeen, waxaan nahay rusushii Allaah ee reer bani Israa'iilna raaci oo addoonsiga iyo ciqaabka ka dhaaf. Waxaynu kuula nimid mucjiso xagga Rabbi ka socota, nabadgelyo dushiisa ha ahaato ciddii hanuunka raacda. Ciddii Alle beenisa waxaa dusheeda ahaan doona cadaab. Fircoon baa la soo booday, Rabbigiinu waa kuma Muusow? Rabbigeenu waa Ilaaha wax walba siiya abuurkiisa ku munaasabka ahaa kadibna jiheeya. Fircoon baa yidhi, bal ummadihii hore arrinkooda ka waran oo maxaa lagu halaagay? Kolkaasuu Nebi Muuse yidhi, cilmigooda Alle xaggiisa ayuu jiraa oo looxul maxfuudka ayay ku qoran tahay.
waa allihii dhulka idinka dhigay gogol, wuxuu ka bixiyey dhulka waddooyin, xagga korena biyo ayuu ka soo dejiyey, oo waxaynu ka soo saarnay noocyo dhir ah oo kala baxsan. Fircoon wuxuu yidhi, haddii uu hadalkaaga dhab yahay, bal noo keen calaamadna tusaysa dhab ahaanshaha hadalkaaga. Nebi muuse wuxuu dhulka dhigay ushii, waxayna isu beddeshay abeeso. Haddana gacantiisa ayuu jeebka geliyey, wuxuuna ka soo bixiyey iyadoo cad oo ifaysa. Kadib Fircoon wuxuu yidhi, muuse wuxuu isu beddelay sixiroole, oo iminka wuxuu doonayaa inuu magaalada nooga saaro sixirkiisa. Fircoon oo Nebi muuse la hadlay ayaa yidhi, muusow, maalinta aad rabta qabso, waxaan kuula iman doonaa wixii sixiroolayaal ah oo magaalada ku sugan. Nebi muuse wuxuu la ballamay in maalinta ciidda ah la isu yimaado, si dad badan ay u yimaadaan goobta. Dadkii baa arlo kasta ka wada yimid si ay u daawadaan waxa dhex mari doona Nebi muuse calayhi salaam iyo sixiroolayaashii Fircoon. qaybtan halkaa ha inoo joogto. Soonka iyo acmaasha wanaagsan Allah inaga wada aqbalo. La wadaag muuqaalkan walaalaha kale si ay wax ugu qaataan, adna aad ajar uga heshid oo inoo sheer gareeya. Ramadaan mubaarak.